مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولاشنا عايشة كسودو channelkeena fadlan haddii aan ugu cusubtay subscribe fideoga like inoo saar, sidoo kale inoo share garee, comment wixii fikrad iyo aad qabtaan aaraa nagula wadaag. maanta waxaan samaysaynaa bariis biryani baa kasoo dureynaa oo digaag ah, biryani chicken insha Allah. hadday tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato fadlan subscribe inoo saar, fideoga like inoo dheh. halka basal baa kusoo jarjaraynaa, laba xabo basal oo weyn baa kusoo jarjaray. basasha waxaan rabaa inaan guduudiyo, yacniga waxaan ka dhigayaa kafe ama brown ama bunni saa u taqaanid midabkeeda saasaan ka dhigayaa. hadhow baan rabaa inaan dusha yacni kaga daro bariiska markaynu soo gabagabayno waa sii horumarsanayaa. marka basasha saas ilaa intii ka guduudanayso saas aynu soo walaaqanaysa aan inooga gubanin. waxay leedahay dhadhan yaroo haddaa u baritid aanad dayn karaynin markaad yara guduudisid oo aad shiishid oo hadhow bariiska yacniga dusha kaga isticmaashid ama aad dusha kaga dartid mar walba isticmaali kartaa, saa doontaad u isticmaali kartaa. marka waxaa sameynaynaa waynu soo shiilaynaa, waynu soo guduudinaynaa ilaa ay guduud kasoo noqoto. hadba marka kasii dambaysa midabkeedu wuu isi soo bedelayaa. intaa kadib waxaa sameynaynaa meel gaara dhiganaynaa oo kasoo guraynaa. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا. sidaasay inoogu soo baxday. isla maqligii iyo saliiddii aynu ka gurnay basasha waxaan kusoo shiilaynaa kaarooto, dhowr xabo, laba xabo waaweyn oo kaarooto ah waaynu si dhuudhuubaan usoo jarnay. iyada iyo basashaba isku si baynu isticmaali doonaa. waxaan sidoo kale ku daraynaa markay kaarotadaas xoogaa yara bisayl aada, maadaama qayliinba lagu cuno bisayl aada kaagama baahna, xoogaa yaro dee gows qabatina baa looga baahan yahay. okay, markaynu kaarootada soo yara shiilano waxaan ku darsanaynaa sabiibta cambareeriina kusoo shiilaynaa. saddexdoodaasba dhan baynu dhiganaynaa, hadhow baynu isticmaali doonaa insha Allah. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. halkan waxaan rabnaa inaan bariiska kusoo samaysano. subag yar baa halkaa ku daray, waxaa ku daray wixii xawaash ah haysatid, filfil dhagayara shiidan, qorfe shiidan, adigu wixii ah haysatid oo dhan. inta kadib bariiska waa soo yar rogrogaynaa, waynu soo biyeynaynaa. bariis furfura marka horena waxaan lasoo dhigay adigu ilaa 30 daqiiqo meelahaasaan biyo lasoo dhigay. intaa wixii ka dambeeya biyo yar unbaa ku darsanaysaa si uu furfur kugu ahaado. hadhowna aad rabtid inaad ku huurisid digaagii iyo wixii biryaanigiis iyo bariiska waa soo biyeysanaynaa. kadib waxaa usoo jeesanaynaa halkaa waxaa ku samaysanaynaa wixii aynu digaaga dhex gelino. cabaar yar baan rabnaa inaan la dhigno. waa huruud, kamsar iyo toon, dhagayare, qorfe, xaabow, xawaash buurbuur, filfil, liin dhanaan. intaas baan xoogaa cabaar la dhigaynaa, yacni intaan kusoo rogmidno xoogaa muddo yar la dhigaynaa inta bariiskii inoo soo bislaanayaan. kadib hadhow dabkaa ku hubsanaynaa, yaanyaa usoo shiidaynaa si fiican. markaa isku soo dhexgelino oo muddo dhigno waxaa sameynayaa isagoo dhacaankiisa iyo howlihiisa wata baan dabka saaraya oo ku yara hoorinaynaa. yaanyadaynu soo shiidayna baan ku darsanaynaa. yoogar haddaa haysatid, anuga maanta yoogar ma haysan, yoogar baa isticmaali kartaa oo iyana maasha Allah kaala arag bay kaaga dhigaysaa. kadib wixii bahaaraad oo kale aad isticmaalaysid baad markada kaga darsanaysaa iyo milixdaada iyo howlahaagii kale. bariiskii oo aynu kasoo dejisanay baynu 2 dabaq ka dhigaynaa.
suugadii baynu kusoo darsanaynaa saan baynu kusoo darsanaynaa kadib dabaqa u dambeeya baynu sii saaraynaa insha allah. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ. saafraan yar baan kusoo darsanay kadib waxaan sameynaa alaabtii in marka u horreysay kusoo shiilaynay basashii kaarotadii iyo sabiibtii baynu saadhakada uga daraynaa cabaar baynu dabka aad ugu gaabinaynaa si aanu inooga jilcinin bariisku. markaan u gaabino daboolka u jiidaynaa kadib isku soo laabanaa insha allah siduu inoogu soo baxo waa arki doontaan. bariis biryani haddaa baritidna waxaan ku yidhi bariis dhex karisayo adduunyo kale waa isnacaysaan wallaahi waa ku haysanaa. weliba ramadaanta isaga iyo canjeelo unbaa loo dhexeeyaa. saanu inoogu soo baxay waa furfur kaale arag basashaa shiilan iyo kaarootada iyo alaabtaasina dhadhanka usii saxayaan wax kale ay kasoo saarayaan. fadlan haddii aad halkan nala soo gaadhay oo aada nagu cusub tahay subscribe inoo saar, videoga like inoo dhe. dhammaantiin aad baan idinka mahad celinayaa waqtigiina quruxda badan ee qiimaha badan ee ay la wadaagteen. insha allah waxaan rajeynayaa inaynu sii wada joogno haddii ilaahay nafta inagu simo. ramadaan mubaarak.